madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo jeediyay fikrad ah in wadamada Islaamku samaystaan bangi weyn oo Islaami ah oo loogu adeego kaabayaasha dhaqaalaha ee dunida Islaamka. Madaxweyne Erdogan oo arrintaas ka hadlaya waxa uu yiri: Bismillahirrahmanirrahim. Bangladesh Halk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Sheikh Hasina waa suurtagal inaan hirgelino fikradda ah inaan dhisno bangi weyn oo Islaami ah oo ku shaqeeya nidaam elektrooniga kaasoo buuxin doona baahida xisaabaadka hay'adaha maaliyadeed ee Islaamka iyo maalgelinta kaabayaasha ku soo kordhaya dunida Islaamka si aan uga ilaalino dalalkeena khataraha ku salaysan sarifka iyo lacagaha qalaad. waa inaan diiradda saarnaa inaan ganacsiga isku dhaafsano lacagaheena maxalliga ah. Arrintani waxay inaga difaacaysaa adeegsiga sicirka iyo sarifka wadamo kale kuwaasoo ujeedooyinkooda siyaasadeed ee marxaladaha hadda lagu jiro inagu khatar gelin kara. waxaa muhiimad gaar ah leh inaan yeelanno shabakad cilmi baariseed. shabakadan oo awood u yeelan doonta inaan wadaagno kulligeen macluumaadka u dhaxeeya jaamacadaha iyo hay'adaha kale sida cusboonaysiinta tamarta, sirdoonka, farsamada, internetka iyo xogaha kale ee waaweyn. dhammaan xubnaha 8 ah ee ururkan uu ka kooban yahay waa inaynu xoogga saarno wax soo saar qiimo sare leh oo ku salaysan tiknoolajiyad sare si loo gaaro korar xooggan oo dhaqaale oo waara. dhammaan xubnaha ururkan waxaa khasab ku ah inaan cusboonaysiino ururkan oo uu ku shaqeeyo si firfircoon oo saamayn leh si aynu u daboolno baahiyaha maanta jira. ururkan waa inaynu u beddelno mashruuc iyo qaab ujeeddo ku dhisan oo leh natiijo fiican oo baahsan. madaxweyne Erdogan ayaa fikraddan ka soo jeediyey shirweynaha tobnaad ee yeesheen urur ay ku midaysan yihiin 8 waddan oo soo koraya oo Islaam ah. ururkaas oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano D8. ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan oo isna shirka ka jeediyay khudbad ayaa soo jeediyey in dhinaca horumarka looga faa'iideysto quwadda iyo wax soo saarka dhalinyarada tirada badan ee dunida muslimka. isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri: We have 550 million young population in D8 countries. Our youth has not only the potential to optimize our opportunities. waxaan haysanaa 550 milyan oo dhalinyaro ah oo ku nool 8 waddan ee ururkan ku bahoobay. dhalinyaradeennu ma aha oo kaliya awoodda dalalkeennu ay ku horumari karaan ayna ku wanaajin karaan fursadahooda, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan caqabadna haysato oo nagu horgudban. dhalinyaradeenna tirada badan waxay isugu jiraan ganacsato, hal abuurayaal ganacsi, saxafiyiin, hormuudka tiknoolajiyada iyo macallimiin. waa inaan u abuurno fursado cusub qaybtan ugu badan ee dadkeenna sida ka faa'iidaysiga tiknoolajiyada, dhiirigelinta hal abuurnimada, maalgelinta waxbarashada dhalinyarada, xirfadaha iyo tababarada. iyaguna waa muhiimad weyn oo degdeg wax weyn u taraya. waa inaan qaadnaa ficilo la taaban karo si aan u gaaro bartilmaameedka ah in la ballaariyo ganacsiga gudaha. xubnaha 8 waddan ee ururkan ku bahoobay oo hadda ku dhow 100 bilyan ilaa 500 bilyan sanadka 2030. waxaan soo jeedinayaa inaan qaadno tallaabooyin dhowr ah sida inaan fududeyno nidaamka xuduudaheenna, inaan kor u qaadno isku xirnaanshaha hay'adaheenna si kor loogu qaado ganacsiga 8 waddan ee ururkan ku bahoobay iyo wadamada kale ee Islaamka. waxaan soo dhaweynayaa fikradda ah in wadamadeennu ay mideeyaan nidaamka dhaqaalaha, gaar ahaan kaararka lacagta lagu bixiyo. arrintaasi waxay awood u siin lahayd macaamiisheenna isticmaalka lacagaha maxalliga. ururka D8 oo ay ku bahoobeen 8 waddan oo Islaam ah oo soo koraya waxa xubno ka ah 8 dal oo Islaam ah oo kala ah dalalka Masar, Nigeria, Pakistan, Iran, Indonesia, Malaysia, Turkiga iyo Bangladesh. tirada dadka ku nool wadamadaas ayaa gaaraya 1.1 bilyan oo qof
oo u dhiganta 14% dadka adduunka ku nool. ururkan ayaa ujeedkiisu yahay xoojinta xiriirka dhaqaale iyo bulsho ee ka dhaxeeya dalalka Islaamka. ururkan ay 8 waddan ku midaysan yihiin waxaa la aasaasay 15 bishii Juun 1997. waxaana fikradda lagu dhisay ururkan iska lahaa Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Turkiga Najmuddin Erbakan